kani waa maxamed cadaawe oo gacantiisa ku samaystay mashiin macmal ah oo dilaacinaya ukunta digaaga. wuxuuna rajaynayaa mustaqbalka dhow inuu ka faa'iidi doono fikirkiisan ganacsi. waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. waxay ugu dhalatay sanadkan gudihiisa bishiisa 2 ee February. markii ugu horeysay shirkadda deegaan Poultry Farm waxaan ku aas-aasay ilaa ay 50 digaag ah. fursadaha shaqo ee dalka oo yar ayaa ku dhaliyay maxamed oo arday jaamacadeed ah in uu hal abuur ganacsi maskaxdiisa ka tuujiyo. qorshahana waxaa ugu jirta mardhow inuu shaqo siiyo dhalinyaro badan oo ay camal la'aani hayso. waxaan dhawaan rajaynayaa in aan Poultry Farm aan noqono oo aan maartay isbedel muuqda aan kala kulanno. markii aan la kulanto agaasime kamid ah Poultry-yada Muqdisho ku yaala waxay kugu caqabad ah in aad gudaha u gasho Poultry-gaas aad wax information ka soo heshid. laakiin aniga taas caqabadeeda ma ahan. cid waliba iyo cid kasta oo u baahan qalabkan waxay ku heli doontaa qiimaha ugu hooseysa. arday walba oo magaalada Muqdisho jooga deegaan Poultry Farm wuu ku dhiira karaa xilli kasta goob kasta asagoo aan lagu xijeynin damiin iyo cid ka mas'uul ah iyo cid ka qabiil ah cid oo u baahnay isa jirin oo kaliya u baahan yahay in uu la soo xiriiro agaasimaha oo ka bacdina loo fududay doono in uu galo deegaan Poultry Farm. waa mashiin macmal ah oo fiiqaya ukumaha oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyadoo laga maarmayo inkubeetarada laga keenay dalka dibadiisa oo dadka qarash aad u badan uga bixi jiray. waxaana hirgeliyay hal abuurkan maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho. waxa uu ka samaysan yahay safiito iyo qalab koronto oo la iskugu xiray oo nalka uu ka mid yahay. ukumaha ayaa la gelinayaa muddo ilaa dhowr iyo 10 cisho ah ayuuna ku jirayaa sida uu ii sheegay. kadib ayaa mashiinkan uu fiiqayaa ukunta deetana halkaas ay ka soo baxayaan jijilayaashii yaryara ama doorada yaryar. tallaabo walba oo dhinaca horumarka loo qaado waxaa qasab ah inay ka hor imaanayaan caqabado, balse maxamed wuxuu aaminsan yahay inuu ka gudbayo caqabadahaasi jira. waxaa jira caqabado ah in ay dadkina dhahaan ukuntan way ka weyn tahay. ukunta hadday tahay digaaga dibadda waan rabnaa laakiin digaaga gudaha ma rabno. maxaa yeelay ganacsatada waaweyn ayaa caqabad nagu ah. taasina waxaan ka codsan lahaa in ay naga qabtaan ganacsatadaas dawladda. maxaa yeelay ganacsigan dad badan ayaa ku dhiiraday. aniga way jiraan dad Poultry iskala aan caawiyo. waxaa kamid ah qaaf Poultry Farm oo ku taala magaalada Kismaayo. sidoo kale Baydhabo Poultry Farm waan caawiya oo hadda waxaan u dhiibay 7 xabo oo ah digaaga talaalka lagu talaali lahaa. waxaan dhawaan rajaynayaa in aan Poultry Farm aan noqono oo aan maartay isbedel muuqda aan kala kulanno. markii aan la kulanto agaasime kamid ah Poultry-yada Muqdisho ku yaala waxay kugu caqabad ah in aad gudaha u gasho Poultry-gaas aad wax information ka soo heshid. laakiin aniga taas caqabadeeda ma ahan. cid waliba iyo cid kasta oo u baahan qalabkan waxay ku heli doontaa qiimaha ugu hooseysa. arday walba oo magaalada Muqdisho jooga deegaan Poultry Farm wuu ku dhiira karaa xilli kasta goob kasta asagoo aan lagu xijeynin damiin iyo cid ka mas'uul ah iyo cid ka qabiil ah cid oo u baahnay isa jirin oo kaliya u baahan yahay in uu la soo xiriiro agaasimaha oo ka bacdina loo fududay doono in uu galo deegaan Poultry Farm. maxamuud Soofay, Shabeelle TV, Muqdisho.